السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب قالب ملك استجوبتين سوري ولا channel كيني حرمت عن ترى عفمتك ولا شكري آدم بوله أصحابتها قيمها بدن إلين عهودا نقص عطا ما أنت حربا إنك هلا كولسترول كا عنتوين كهوس ودقا أيا ربا إن أنت كسر دايو سديد عنتو ذا سديد عنتي waxyaalo badan ayaa iska garanaysaa soo dhawaada inagoo maxsan cuntada ugu horeysa waxa ay oatmeal waxa way waa mushaarida oo maxaa la dhahaa oo cad oo qof kasta ka say oatmeal waxa lagu gadaa supermarket-yaasha dukaamada lagu gadaa adaartid waa shiidanaysaa adaartidna waa tumaysaa adaartidna caadi caana lagu karsadaa subaxdii ayaa lagu quraacdaa soo cuntadaas aad ay u fiican tahay because wax saliid leh kuma jiro hilibkana way la dagaalantaa badanaa dadka hilibka leh ayaa cholesterol ku badan yahay that's why marka uu qofka cholesterol u qaadaya cuntada labaad waxa waaye asxaabta qaaliga waxa waaye olive oil ka waxa waaye saliid saytuunka ayna dadka markay maqlaan saliid because cholesterol saliid aan maleynayna inaa ka cararay maxaa wax gabadha sheegayso saliid saytuunka vitaminyaasha ay leedahay cholesterolka ay la dagaaltamaan hoosna way u dhigaan saliidaha kale waa saliidaha oo saliid saytuunka iyo sunflowerka iyo saliid qumbaha kulli cholesterolka la dagaaltamaan waxaana ka helaysaa vitamin E ka helaysaa soo marka cuntada ku karsada inay dhihi lahaa aad ayay u fiican tahay waxa kale cuntada labaad waxa waaye beans wuxuu noqon karaa cuntooyinka waxa digirta salbukada cuntooyinkaasna way u fiican yihiin because wax saliid leh kuma jiro high fiber leeyihiin vitamin C leeyihiin soo waxay nagu dardaarmaa iyadana waana full meal waxa laga wadaa cunto oo marka cuntada caloosh dhaqso ka bixinin marka iyadan waxaan dhihi lahaa digirta badan tahay inta lagu soo koobi karo digirta cunayna dhihi soo asxaabta qaaliga digirta aad u muhiim tahay halkan lagu soo koobi karo soo waxaan dhihi lahaa digirta meel kasta joogtiin cunaan dhihi lahaa waa cunto fiican digirta oo badan tahay salbuko iyadoo badan ay jirto kulay dadka inta badan ay ka saayaan Soomaalida nahayna full al dhahnaa macajarada ku cunaa subaxdii ama lagu casheeyaa halkaas ayaan wasi gudu baxaya digirta cuntada afraad waxa way salmonka waxa way waa malaygaas oo fatty wiliga fishka la dhaho waaye aad u cholesterolka levelkiisa hoos u geeyaa wuxuu leeyahay omega 3 fat acid uu leeyahay soo aad u fiican yahay indhuhu fiican yahay vitamin A uu leeyahay waxaan dhihi lahaa isagana cunaa dadka cholesterolka leh cholesterolka hoos ula dagaaltama hoos u dhigaa cuntada afraad asxaabta mise shanaad waxa waaye kan dhaho avocado cunto kasta kama maqna cuntooyinka oo qof kasta cuntooyinka ugu caafimaadka badan ku jirtaa avocado-da maxay samaysaa waaye avocado-da iyada xitaa vitaminyaal 6 vitamin ay leedahay inta lagu soo koobi karin soo iyadana u fiican tahay waxaan ilaa iyadana ku darsada cuntadiina tastaxay kale waxa way nutska isagana protein uu leeyahay unsaturated fats uu leeyahay cuntooyinka oo saturated ka ah waa cuntooyinka oo dadka cholesterolka ku liraa cuntooyinka unsaturated ka waa cuntooyinka hadda dhanka hadlayo soo waxa ku badan lahay unsaturated ka ku badan wuxuu controla cholesterol controla waxa kale uu fiican yahay lahay wuxuu leeyahay source of omega 3 fat uu leeyahay omega 3 waa maxaa la dhahaa waa vitamin aad important oo dadka bini'aadamka jirkooda soo waxaas cunto wuxuu leeyahay oo maxaa la dhahaa nutska muxuu ka kooban yahay danta kusoo koobo waa lowska walnut mid la dhahayo soo waa laba la isku daray taas waa nuts iskugu dhahaa iyagoo la hagaajiyay soo dadka dadka ka say nuts wixii laga wado cuntada saddexaad cuntada kale waxa weeye lixaad waxa weeye whole grainka waxay noqon kartaa waxyaalo badan waxay noqon kartaa cuntooyinka greenska ah sida vegetable-ka waxay noqon kartaa cuntooyinka brownka ah bariiska brownka ah ama canjeerada brownka ah ama rootiga brownka noqon kartaa iyo cuntooyinka greenska oo dhan whole grain la isku dhahaa cuntada sideedaad waxa waaye waa maxaa la dhahaa shaaxa waaye shaaxa maxay ka caawinaya haddaan cab waaye shaaxyada ayaa kala ah shaaxa weli waxaa fiican oo madow ku darsatid qorfo ama dhagiyare ama green tea ku darsatid isagana hoos u ridaa soo cuntooyinka saliidda leh iska ilaalinaysaa iyo cuntooyinka saturated-ka ah cuntooyinka aan saturated-ka la cunaa soo cuntooyinkan sidii aan kasoo hadlay cuntooyinka oo cholesterolka hoos u ridaayo waaye marka asxaabta qaaliga aan la tacaalino caafimaadkeena because qofka marka cholesterol ku dhaco wadna xanuun iyo stroke ku dhaco hilibkan waxa fiican inuu qofka iska la yareeyo inuu exercise sameeyo fiican soo asxaabta hadalka ma rabo inay nagu sii dheereeyo meesha nagala socoteen waa xarunta cuntada waa channelkeeni xarunta cuntada caafimaadka subscribe sameeya share sameeya like sameeya comment waxa adiga fikradaada hoos nagu soo daay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.